agaasimaha guud ee wasaaradda macdanta iyo tamarta Somaliland Mukhtaar Maxamed Cali iyo waftigii uu hogaaminayay ayaa safar shaqo ku gaadhay deegaanka buuraleyda dahabka ee Cirshida halkaas oo dadka deegaanku cabasho ka muujiyeen shirkadda Xidid Madow ee deegaanka macdan baarista ka wada waxaana safarkan agaasimaha iyo waftigiisa ku wehelinayay maamulka gobolka Sanaakan degmada Ceerigaabo saraakiisha ciidamada kala duwan iyo waayeel ka mid ah dadka deegaanka waxaana mas'uuliyiintani shir laanan ay halkaasi ugu qabteen dhammaanba qaybaha kala duwan ee dadka deegaanka iyo mas'uuliyiinta shirkadda Xidid Madow wadahadal dheer kadib waxaa la soo afjaray wixii cabasho ahayd ee dadka deegaanka iyo shirkadda macdanta ee Xidid Madow u dhaxeeyay waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Sanaag ahna sihayaha xilka Barasaabka Maxamed Khaliif Nuur iyo agaasimaha guud ee wasaaradda macdanta Mukhtaar Maxamed Cali dhamaantiin iyo waayeelka reer Cirshida waxaynu halkan ka ilaaminaynaa go'aankaynu kala qaadanay iyo laba marshuuc aanu idin dhagax dhigayno oo ah MCH-kii magaalada Cirshida iyo saldhiggii Bilayska insha Allah bismillaah kariim waxaan rajaynaynaa bil gudaheed inay ku dhamaadaan labadaasiba saldhiggiina idin hirgalo MCH-kiina iyo dawadiina idin hirgasho iyo dhakhaatiirtiiba waxa kaloo hortiina uu ka ballan qaaday agaasimaha guud gaadhigii Bilayska ee saldhigga Cirshida lahaa in hadda dhaqsaysna la idinku keeno ballanteenu waxa weeye inaynu wada shaqayno dawlad ahaan shacab ahaan iyo shirkad ahaan ballanqaadka aanu ballan qaadnay xukuumadduna si dhaqsaa baan u fulinaynaa soo inaynu wada shaqayno ballinoo ma aha soo horumarka wada shaqayn mayno shirkadduna inay liibaanto soo duceeya caloosha ka sii daaya muddo 4 cisho ayaynu ku sugnayn eeriyadan inaanu safar soo ahayn iyo inaanu joognayba alxamdulillah waa khilaaf yar oo dhex yimid shirkadda iyo dadka deegaanka adduun la Cirshida intiina turxaan bixintii naga dhamaatay alxamdulillah rabbil caalamiin maantana gacmaha muhiimka wada haysanaa hal tiimna waynu nahay adduun la yiraahdo shirkadda Xidid Madow ee maanta ka shaqeynaysa waxaynu rajaynaynaa guul waxa weeyaan waxaynu rajaynaynaa wixii qarniye iska yaalay ee khayraad in la inoo soo saaro inuu dhammaanteen wada faa'iidno haday tahay shacbiga deegaanka iyo haday tahay gobolka iyo haday tahay qaranka inay dhammaanteen ka wada faa'iidno community diplomatkii waxa weeyaan shirkadda waxay sameyn doontaa MCH-kii insha Allah sida ugu dhaqsaha badan sida Barasaabku uu sheegay iyo gaadhigiiba waa diyaar sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha guddida khayraadka ee xildhibaanada golaha wakiilada Mubaarak Muuse Ismaaciil iyo xildhibaan Cambe waxa ballan nooga inaan runtii kor joogteen u noqono hawsha ay shirkaddu wado iyo ballanqaadka dawladdu ay ku ballanqaaday waxa maanta halkan aanu joognaa inay gacmaha haystaan deegaanka shirkadda iyo xukuumadda sidoo kale waayeelka deegaanka ayaa iyaguna dhankooda halkaasi ka sheegay inay dawladda iyo shirkadda macdanta ee Xidid Madowba hadda laga bilaabo ay la shaqaynayaan wixii horumarna ay soo dhaweynayaan maanta waxa alxamdulillah in cabashadii deegaanka iyo shirkadda la dhameeyay wixii gudaha yagaanu ka dhamaynaynaa waxaan halka cadeynaa inaanu qaadanay horumarkana waa soo dhaweynaynaa go'aankana waa wada qaadanay horumarkana waa soo dhaweynaynaa dawladda iyo shirkaddana waanu la shaqaynaynaa waa Cabdirasaaq Xaaji Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada Ceerigaabo.